madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafdu soo hogaamiyay oo dhuusa mareebka maqnay ku qayb galowga shirka wada tashiga madaxda federaalka iyo han dowlad goboleedyada iyo geeka reetankanaga magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel deerkan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiro xildhibaano saraakiil ciidamada qaybada shirdugun siyaasiyiin iyo boqolaal shacab reer Baydhabo iyo ka dhawaay garoonka diyaarado Dr. Shati iyagana shacabka dhawaay ku qayb galowga madaxweynaha iyo ka dhawaaqayaan halka dhigiga ku mid hayaan hadaba madaxweyne iyo hano kale oo ku muujiyay kalgacaylka iyo wanaagga dowladnimo ee ku beelay deegaanada koonfur galbeed hadawaayo iyo ismarxabeen kureed wafdigu soo hogaamiyay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyo lahangelbi xarunta aqalka madaxtooyada ku meel deekan ee magaalada Baydhabo meelaas oo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen dadkii ku qayb galay hadawaayo iyo ku warbi safarkiisan kama qonay magaalada Dhuusamareeb aan ka horeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen yaa dadkii ku qayb galay hadawaayo iyo ku mahdi si iyo han dhawaayeen maynu sireenaga kala ku hadalay shirkii muhiimka ah ee ku dhig Dhuusamareeb iyo guulowga la ku deeri gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo shacabkii reer koonfur galbeed iyo shacabkii degmada Baydhabo oo na soo dhaweyntii diiraneed aad iyo aad ugu mahadsantiin waxaan rabaa marka hore inaan kaga mahadceliyo soo dhaweyntii sharafta badneed in la soo dhaweeyay uu horkacay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed iyo shacabkii degmada Baydhabo la socotaan waxaan aadnay safar shir ka dhacay Dhuusamareeb oo ujeedkiisa uu ahaa markii ugu horeeyay ku bilowmay madaxda dowlad goboleedyada wada tashi laga wada tashanayay wada shaqaynta iyo xiriirka iyo midnimada iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo mustaqbalka shirkii asaga ahaa wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah waxaan isku fahanay in wada shaqayn buuxda la qaato waxaan isku fahanay dowladda federaalka iyo xubnaha dowlad goboleedyada ee dowladda federaalka xubnaha ka ah inay wada shaqeeyaan lagana wada shaqeeyo arrimaha Soomaaliya shirkii waxaan ugu soo biiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha runtii shir aad u qiimo badan buu ahaa isfahan fiican iyo wada tashi iyo aragtiyo sida aad maqasheen communique soo baxay ahaa yaa ka soo baxay ujeedka ugu muhiimsan oo shirka wuxuu ahaa in wada shaqayn buuxdo oo kalsooni leh oo isku xiran ay sameystaan madaxda dawladda ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada runtii wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah wuxuu ku soo dhamaaday isfahan fiican wuxuu ku soo dhamaaday in laga wada shaqeeyo marxaladda lagu jiro arrimaha Soomaaliya in horey loo socdo la gaaro higsiga ay dadka Soomaaliyeed higsanayaan sidii loo heli lahaa horumar buuxo in la gaaro oo mushkiladahan horey looga socdo in gacmaha la isqabsado si wada jir ahna la isula shaqeeyo waxaana muhiimadda ay ahayd arrimaha siyaasadda amniga cadaaladda iyo arrimihii doorashada intaba si fiican oo guulahay ku soo dhamaatay si fiican baana la isu fahmay waxaana lagu heshiiyay madaxda inay wada shaqayn joogto ay yeeshaan kulamadana intaan ka bataan waqti kastana maxay ahayd sidii caadada ahaan jirtay in la isu bato talada la wada tashto markasto shir kala dib loogu ballamay ka horna waa la arki doonaa waxaana lagu heshiiyay in geedi socodka nabadda iyo horumarka laga wada shaqeeyo arrimaha doorashooyinkana la isla faguro doorasho
dadka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin oo ay heshiis ku yihiin oo madaxda dawladahana ay dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalkana ay heshiis ku yihiin in la qabto ayadana shaqadeeda waa socotaa oo meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa guul sida aad la socoteen guushaas noogu soo dhamaaday shirkii haddii ilaahay yiraahana qayb muhiim ah oo lafdhabar ahaan u ahayn kaalintii koonfur galbeed ay lahayd iyo ka fiicanna waa matalaad fiican baan idiin samaynay dadka shacabka reer koonfur galbeedna waxaan ugu bishaaraynaynaa in shirkaas uu ahaa shir Soomaaliya oo dhan muhiim u ah gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed muhiim u ah guulna ku soo dhamaaday sidii aan rabnay iyo ka fiicanna ay ka soo baxeen wada tashiga iyo horu socodka iyo xiriirkana uu sidii aad ku ogeedeen uu ka sii fiican yahay dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalkaba ay si fiican u wada shaqayn doonaan waxaan si gooni ah ugu mahadcelinaynaa shacabkii maanta dhan qoraxda taagnaa oo na soo dhaweeyay aad iyo aad u mahadsantihiin madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen iyo wafdigiisa hogaamiyay iyo safar qaaday muddo lam isbuuc in ka maqnay magaalada Dhuusamareeb iyadoo magaalada Dhuusamareeb ku qayb galeen shirkilan ku hadalay aayo iyo horumarka dalka Faysal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha dawladda koonfur galbeed aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo